kusoo dhawaada janaalka Dami Films waa Ismaaciil Dami maantana barnaamijkeena imtixaan oo ahaa ee uga hadlaynay sida film loo sameeyo qaybtiisii afraad waxaan uga hadlaynaa locations ama goobaha filmka aad ku duubeysid barnaamijkeena qaybteeni saddexaad waxaan uga soo hadalnay casting and crew jilayaasha kamerada horteeda imaanaya iyo shaqaalaha kamerada gadasheeda ka shaqeynaya maantana qaybteena afraad waxaan uga hadlaynaa locations ugu horeyn intaan u galin goobaha filimka ku duubeysid marka horeba marka qoraysid filimka waxa u baahan tahay inaad ka fikirtid goobaha aad heli kartid inaad ku qortid sheekadaada haddii guri tahay asxaabtaada guryahooda haddii hotel tahay ama maqaayad hoteelada iyo maqaayad dadka istaqaanin adi locationo ama locations ama goobo adi aad heli kartid in aad filimkaaga ku salaysid haddii kale laakiin diyaarad helicopter ergas ka soo dhacaysa hada filimka ku dartid ama markab weyn oo badweynta dhex jibaahay sheekadaada markaa qorto labadina ma awoodid sababtoo wuxuu u baahan yahay dhaqaale badan maxaa ku khasbanaanay marka filimkaaga inaad meel iska dhigto marka saas si aysan u dhicin waa inaad marka horeba sii qorshaysataa meelaha aad filimkaaga ku duubi kartid inay yihiin meelo aad awoodid iyo waxyaabaha awoodid yihiin waaya qaybta koowaad waxaa soo bi kartaa waxaa u baahan tahay inaad filimkaaga duubtid kamerada soo qaadanay jilayaashaada soo waday magaalada meesha ugu soo duubanay adoona qof u sheegin dhac aad duubanay mafaan si aan ugu ogeyn adoo qofna weydiisan si hoos u duubanay filimkaaga tusaale meelaha waaweyn oo dowladda leedahay zaidka loo ilaaliyo kaleeto waxaa fiican inaad kamera soo qaadanin muuqaalkaas aad ku duubtid smartphoneska teleefanada casriga sida iphone-ka iphone 14 ama 12 Pro Max waxaa jirta runaantii film aan Kenya ku duubay qayb kamid ah filimkaas wuxuu ahaa airport marka airport-ka camera ma la geli kartid oo meel walba ka ahayda camera ku xiran tahay waa meel security-geeda aad loo ilaalinayo marka waxaan isticmaalnay smartphone aan ku duubay muuqaalkaas qaybta labaad si aad u heshid goobaha filimkaaga aad ku duubeysid waxaa u baahan tahay dadka ugu hareysan asxaabtaada iyo macrifada alatid inaad weydiisid qof hebel qof uu sii yaqaana qofkaasna qof kale uu sii yaqaana qofkaas qof kale uu sii yaqaana marka wuxuu yaqaanaa hotel hebel aad rabtid inay filimkaaga ku duubatid ama guri naqshadiisa saan u eg tahay qof iska loo yaqaana marka waxaa suubinay asxaabtaada dhexdeeda aad ka raadinay sida ku heli lahayd goobtaas filimkaaga ku duubeysid sidoo kale waxaa suubi kartaa inaad social media soo dhigtid oo tiraadid asxaabta waxaan u baahanahay filimkayga inaan ku duubo qol saas u eg ama xafiis saan u eg qofka ii keena maaragtahay abaalmarin uu leeyahay xataa abaalmarin yar adiga awood jeebkaada ka bixi kartid inaad kor saartid tiraadid hay intaas $1 adi $50 camal aan siina qofkii meeshaas ii keeno saas u eg qaybkaasna waa lagu helaa goobaha filimka lagu duubo waayahay qaybta saddexaad ee waxay noqonayaan si aad u heshid goobta filimka aad ku duubeysid inaad adiga lugaha ku baxdid oo u tagtid qofkii iska lahaa goobtaas aad ka codsatid in maaragtahay filimkaaga aad ku duubtid tusaale waxaa rabtaa inaad filimkaaga ku duubtid maqaayad waxaa u tagay maamulaha maqaayadda ama ninka iskale waa kala hadlaya oo sheegay waxaa leedahay meeshaan aan rabaa inaad filim ku duubto waayo adiga marka baahidaada waa gudbisay ninkii maamulaha maqaayadda ka ahay ama iska lahay asaga laftirkiisa oo xisaabtama wuxuu leeyahay maxaa dan oo kaa soo galaya marka qofkaas markaa u tagtid oo kaleeto aad usoo bandhigto waxaa leedahay Ismaaciil Dami la dhahaa waxaan ahay maaragtahay film sameeye waxaan duubaa film hebel waxaan rabaa maaragtahay muuqaal kamid ah filimkaas in maqaayadda ku duubto isla markaasna maqaayadda markaan ku duubto waxaan ka koobanahay ilaa adiga 15 qofood 20 qofood marka la isku diro jilayaasha filimka iyo shaqaalaha filimka shaqeynaya 20kaas qofood markaan dhameysano duubistaankeena maqaayadii wixii qada iyo maaragtahay cabitaan maqaayadan ka gadanayna sidoo kale tan filimka markuu soo baxana maqaayadaadii maadaama ay ku jirto qayb kamid ah waxay ku noqonayaan xayeysiin qofkii maqaayada lahay marka uu ka aqbalayna maaragtahay sidaas hal abuur kale aad ula hadashay sababtoo ah markaad tihid filim sameeye ama director markaad tihid
waxaa tahay qof hal abuur leh, creative ata creative-nimadaada kaliya marka ma rabo inay ku ekaato film samaynta kaliya jilayaashii sheekadaada iyo daarad gareynta bis inay ku ekaato waxaa la rabaa outside the box xataa inaad ka fikiri kartid oo maaragtahay kan inta isticmaashid aad maaragtahay hal abuurnimadaada uga faa'iideysan karaysid. tusaale filimkii vacation marriage ama guurkii fasaxa saas oo kale tan soo biyay maqaayada ku jiray maasha Allah yarkii maamulaha maqaayadka yar fiican oo aan soo dhaweeyay sidii aan maaragtahay aan uga dhadhacsiyay fikradii oon ila qaatay filmaan hore suubiin waa tusiyay marka uu aqbal in maaragtahay filimka meeshii aan ku duuban marka la kulmaysid maamulaha maqaayada ama ninka maqaayada iska leh ma aha inaan maaragtay jilaayash soo wada qalabka soo qaadatid aad tiraahday duqa meeshaan aan film ku duuban yani saas qof professional ma ekaanaysid waxa u baahan tahay hal maalin ama laba maalin ka hor markaa qorsheynaysid filmka duubatid ina uu imaadid qofkii aad la fadhiisatid la sheekeysatid aad isbartid ka dhaadhacsiis inaa maaragtahay waxaa rabtid markuu ka aqbalna u sheegtid jadwalka qorsheysatid maalin hebel sababtoo waxaa laga yaabaa maqaayada maalin hebel maaragtahay dad reservation ay qabsadeen maaragtahay casuumaad ku dhiganayaan ama xaflad ama maaragtahay ay kireysteen sidoo kaleeto ku xisaabtan filimkaaga markaad duubanaysid waqtiga uu yahay tusaale haddii waqti qada yahay inaadan kusoo beegin maqaayada 6 saac 7 saac 8 saac waa waqtiyada maqaayada zaid mashquulkeeda badan yahay oo dadkii qaday lahayd customkii ay maqaayadii buux dhaafinayaan waqtigaas marka wax ma duubi kartid sababtoo ah dadka maqaayada ka cunteynaya ma rabaan in maaragtahay kaamiradan ay soo galaan marka waxaa suubinay 4 saac bar 5 saac mal imaanay muuqaalkaaga sii duubanay markaa dhamaysatid muuqaalkaaga filimkii ka bacdina ay qaadada bilaabato adinkana sidii maaragtahay qaadada ugu fariisanaysiin oo maaragtahay hawshiin ku soo dhamaatay sidoo kale waxa u baahatay goob ganacsi sida dukaan kale inaad wax ku duubatid ninka dukaanka la iska la tagay waxa la daahinay film sameeyahay magayga waa Ismaaciil Daami shirkad Daami Films ka socda filna raba inaan meeshan ku duubto marka qaybtaas kamid ah filimka inaan ku duubto iyo ogolo with exchange waxaan ku kala bedelnayna waxa la daamaa sawiro maaragtahay dukaanka website-kiisa soo gashatid aan ku qaada masawiradaas maaragtahay aan kaaga bedel waxa kale oo u baahnaatay in aad hotel wax ku duubatid waxa fiirinay magaalada hoteelo badan oo ku yaalaan haddii jiraan hoteelo cusub oo mar dhow la furay hotelkaas managerkiisa maamulihiisa u tagay waa la soo hadlay filna duubi raba muuqaal kamid ah raba hotelka qol kamid ah ina maaragtahay ku duubto ina iyo ogolaatid adiga maaragtahayna meeshaas waxa ka helay maadaama hotelkaaga cusub yahay in la barto filimkayga markuu soo baxo bulsho badan ay fiirsato in maaragtahay hotelkaagii dalay dibadda meeshaas laga soo raaco sidoo kale tana ha iloobin filimka maaragtahay muuqaalkaas markaad ku duubatid qolka hotelka in aad maaragtahay establishment shots aad maaragtahay hotelka qaadid si loo arko loogada hotelka iyo albaabka laga soo galay iyo hotelka meesha ku yaalo si xayeysiin dad banay macnaha inaad 3 to 4 shots oo kale ugu soo dartid ninkii hotelka iska lahay waxa kale oo soo bi kartaa maqaayada dukaanka hotelka iyo goobaha kale oo u baahantii dadka iska la markay ku ogolaadaan waxa kale oo u raacsiinay waxa leedahay sidoo kale intaas kaliya ma sidoo kale oo filimkayga markuu soo baxo filimkeena markuu soo baxo qaybta mahad celinta waxa ku jiro brand name-kiina macnaha hotelkiina magaciisa ama maqaayada ama dukaanka magaciisa iyo qofka iska lahay qaybta mahad celinta inaad ku soo dartid dadkaas ayagana waxay ku sii dhiirigelinay inay maaragtahay ogolaansho ku siiyaan qaybta saddexaad oo aad ku heli kartid goob aad film ku duubtid locationka filmkaaga aad ku duubtid waxay noqonaysaa in goobaha sida hall weyn maaragtahay hoolasha aroosyada lagu duubo kaleeto ama hall weyn oo maaragtahay store oo banaan kira loo raadinayo oo kaleeto qof yaqaan inuu ku soo raadiyo maalmaha fasaxa oo magaalada xiran yahay hawlkaas ma shaqeynaynin in maaragtahay qofkaas iska la qof u yaqaan qof uu si yaqaan oo aad taqaanid inuu maaragtahay meeshii ku geeyo oo kugu xiro meeshaas aad wax ku duubatid marka you have to transform the location into what you want macnaha meeshaas lagu siinayo hawlkaas waxa ka dhiganay qol aragto maano waxa ku xiray darbiye safiitooyin ku wareejinay
qolkii colorka rabtay sariir iyo waxa soo dhex dhigane maaratahay qolka rabtaa ka dhigana oo kaysiinay haddaa rabtid waxa ka dhex dhisanay tendo waxa ka dhex dhisan waxa ka dhigayeen maaratahay muuqaalka hadduu yahay qayb banaanka maaratahay meel forest door ah wax ku duubaysay tenda ku taalay tendada meesha ka dhex dhisay waa ku duubay hadhowtina muuqaalkii qaybta banaanka soo duubane dhac waxaa la isku keensanay farsamo lambar 5 waxa kale oo suubi kartaa in maaratahay qof dalaal aad shaaxis siisid maalinkaas qadiis u qaadid aad tiraadniyo guriga haysid iyo galo ina maarata wax ku duubto barnaamijkeena qaybtii afraad maanta aan uga hadlaynay locationiska ama sidee loo helo goobaha filmka lagu duuban intaas ku soo gabagabeynina waa Ismaaciil Daamid leh la soco qaybta 5aad ee barnaamijkeena taxanaan oo ahay sidii film loo suubiyo intaas inteeda ka horeyso waxayna rajeynaa nabad iyo caafimaad insha Allah